guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtidu iyadoo ka duuleysa qodobka 61aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa afraad iyo qodobka 6aad ee xeer-hoosaadka golaha guurtida kadib markii ay guddidu aragtay dhammaan doodii mudanayaasha ee kalfadhigii 68aad ee golaha guurtida guddidu waxay soo jeedinaysaa tala bixinahan hoos ku qoran waxbarashada dalku si guud goluhu wuxuu u tilmaamay inay meel fiican marayso balse waxaan soo jeedinaynaa inay jirto caqabado haysta waalidiinta danyarta ah oo aan awoodin inay iska bixiyaan kharashka lacagaha faraha badan ee waxbarashada ubadkoodu u baahan yihiin oo muddooyinka u dambeeyay aad u qaaliyoobay in dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladuba ay hoos u eegaan dadka danyarta si ay ula mid noqdaan ummadda kale oo aanay aqoon la'aan ugu dhicin waa soo jeedinaynaa waxaanu bogaadinaynaa in wasaaradda waxbarashada ku guulaysatay midaynta manhajka waxbarashada dalka iyadna waanu bogaadinaynaa waxaa kaloo soo jeedinaynaa in kor loo qaado tayada dugsiyada dawliga ah lana gaadhsiiyo kuwa gaarka loo leeyahay sida waxaa muuqata in labada qaybood ay yar kala sarreeyaan oo ay kala tayo badan yihiin si taa loo gaadhana waxaanu soo jeedinaynaa in macallimiin tayale loo xulo dugsiyada dawliga ah ee dadka danyartii u badan yihiin waxaa kaloo soo jeedinaynaa inay wasaaradda waxbarashadu kontaroosho dugsiyada gaarka loo leeyahay habsami socodkooda iyo waxbarashadooda iyo imtixaanaadkooda iyo tayada ardayda iyo tayada macallimiintaba maadaama ay iyadu ka wada mas-uul tahay waxbarashada dalka waxaa kaloo soo jeedinaynaa guddi ahaan in xukuumaddu sidii fiicneyd ee ay ugu qaybisay buugaagta daabacan dugsiyada hoose dhexe inay kuwa sare ee dawliga ahna gaadhsiiso haddii aan la yidhaahdo dhammaantood gobollada dalka oo dhan waxaanu soo jeedinaynaa annagoo ku dhex jirnaa weli waxbarashada in la kordhiyo dugsiyada farsamada gacanta gobollada dhammaan dalka oo dhanna laga hirgeliyo degmooyinka laga hirgeliyo si ay dhallinyarada bilaa camalkii ugu shaqo tagaan aqoontooda ay kala soo baxaan ama ay ka bartaan dugsiyada farsamada gacanta waxaanu soo jeedinaynaa in la kordhiyo dugsiyada barashada diinta islaamka lana tayeeyo prioritigana la siiyo si ay noogu soo baxaan arday akhlaaq leh oo diin ku dhisan insha allahu tacaala waxaanu soo jeedinaynaa in la kordhiyo dugsiyada baahiyaha gaarka ah dadka qaba ama indhoolayaasha lugoolayaasha gacmoolayaasha dhagoolayaasha dadka baahiyaha gaarka qaba inaan iyagana la iloobin ee dugsiyadooda la kordhiyo gobol walba laga helo degmo walbana laga helo haddii aan la yidhaah waxaanu soo jeedinaynaa in kor loo qaado tayada jaamacadaha dalka iyada oo jaamacadiina ay bateen tayadoodiina ay liidato waa dareemi kartaan ardayda ka soo baxda heerka aqooneed ee ay ka taagan yihiin marka ay tagaan geeska afrika imtixaanaadka ay ka galaan waddamada aynu jaarka nahay halka ay ka galaan waxaanu markaa ku talinaynaa in guddida tacliinta sare iyo wasaaradda waxbarashaduba ay arrimaha jaamacadda u fiirsadaan korna loo qaado qadiyadda caafimaadka waxaanu soo jeedinaynaa in la hirgeliyo oo laga hirgeliyo caasimadda iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkaba cusbitaallo cusub maadaama cusbitaalladii hore ee ku yaalay ay yihiin kuwo aan ku filayn oo aan qaadi karayn dadka imika bukaanka ah ee dalka gudihiisa jooga si markaa baahida looga baxo waxaanu soo jeedinaynaa in cusbitaallo kale intii la awoodo la ikhtiraaco oo dawliya weliba horta waxaa kaloonu wasaaradda ku dhiirigelinaynaa ama u soo jeedinaynaa inay tuulooyinka iyo degmooyinka fogfog ee caasimadaha iyo gobollada ka fogfog in MCHyo tayo leh oo fiican la gaadhsiiyo meel kasta si aan
gabadha hooyada umushaa aanay ugu dhimanin inta loo soo wado meel caafimaad agteeda inay ka hesho ayaa muhiim iyaduna ah. waxaa kaloo soo jeedinaynaa dalkan baahi badan wuxuu u qabaa shaybaadh lagu baadho dawooyinka dalka. doodii mudanayaasha iyo dooda shacabka guud ahaan waxaa ka muuqda dhaliil weyn oo loo soo jeedinayo dawooyinka dalka la keeno oo aad looga dayrinayo inay xanuunada ka jawaabaan. si taa looga baxo baahida noocaas ah waxaanu soo jeedinaynaa in shaybaadhkii tayada dawada lagu baadhayay in ay wasaaraddu dalabto dalkana keento dekadaha iyo migrationada iyo xuduudaha laga soo dejinayana la dhigo haddii aan la yidhaahdo. waxaa kaloo u soo jeedinaynaa wasaaradda waxbarashadu inay tayayso adeegyada cisbitaalada dawliga guud ahaan dalka oo dhan inay iyo kuwa gaarka loo leeyahayba inay ka warhayso oo waxa adeeg yaalla iyo waxa aqoonta Allah inay iyadu kormeerto oo ay arrimahaas oo dhan wada kuul gasho. waxaan guddi ahaan ku soo jeedinaynaa cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa ka dhex furan qaybta dhimirka in qaybta dhimirka meel gaar ah loo saaro oo laga saaro dadkan buka iyo dadkan xanuunka kala qaba in la kala fogeeyo si loogu hagar baxo kuwa dhimirka qabana. biyaha guddidu waxa ay ku tala bixinaysaa in la sii ballaadhiyo biyaha caasimadda hawsheeduna way socotaa halkaana laga sii wado si caasimaddu u hesho biyo ku filan insha Allah tacaala. guddidu waxay ku bogaadinaysaa wakaaladda biyaha Hargeysa inay dhaam weyn ka xidhay agagaarka geed deeble kal qoray kaasi oo qiyaas ahaan qaadaya 1 milyan oo mitir kiyubik oo u dhiganta 5 milyan oo foosto. waxaa guddidu ay soo jeedinaysaa oo ku tala bixinaysaa in biyaha dalka loo sameeyo biyo xidheenno looga faa'iideysto biyaha qulqulaya ee gelaya badda. guddidu waxa kaloo ay xukuumadda dhexe u soo jeedinaysaa inay kordhiso miisaaniyadda lagaga howlgalo wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqada leh biyaha dalka in miisaaniyad ahaan loo kordhiyo si ay dadku u helaan biyo nadiif ah oo caafimaadkooda ku filan. wadooyinku waa halbowlaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka waa in la sameeyaa wadooyin cusub oo isku xidha dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka oo dhan intaynu awoodno. guddida arrimaha bulshadu waxa ay bogaadinaysaa dhammaan wadooyinka imika socda iyo kuwa dhawaan la dhagax dhigay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhagax dhigay wadooyinkaas oo Boorama ilaa Baki Boorama ilaa Djibouti ah Hargeysa ilaa Balugubadle wadooyinka noocaas ee dhaqdhaqaaqoodu wada socdo guddidu way bogaadinaysaa waana ku dhiirigelinaysaa in la sii wado. guddidu waxay dawladaha hoose ee dalka u soo jeedinaysaa ama kula talinaysaa in ay dardargeliyaan dhammaystirka wadooyinka magaalooyinka gudahooga ee kabkabka u baahan ee googo ah ee aanay baabuurtu dhex socon karayn. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wabilaahi tawfiiq.